بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasha ku xiran aqil official waxaan maanta halkan idinku soo gudbin doonaa qiso dhaxmartay nin lacag dhulka ku jirtay iyo Abu Xaniifa ka hor intaan barnaamijka guda galin subscribe like iyo share-ka xaqiina ayaana laga iloobin si ay dhiirigelin inagu noqoto qisadan ayaa waxay dhaxmartay Imaam Abu Xaniifa in nin lacag dhulka ku aasay ninkii ayaa u yimid Imaam Abu Xaniifa wuxuuna weydiiyay sheekhow waxa dhulka ku jirtay lacag mana aqaano goobta aan ku aasay ee ii sheeg markaas ayaa sheekhi wuxuu ku yiri su'aashani ma ahan mid la weydiiyo culimada fiqiga ah intaas kadib ayuu sheekhi fikiray wuxuuna ku yiri inaad hesho ma doonaysaa lacagtaada ee waxaad samaysaa duko caawa oo dhan salaad ninkii ayaa intuu baxay wuxuu bilaabay inuu dukado salaadii dhowr rakacdood markii uu marayo ayaa wuxuu soo xasuustay goobtii uu lacagta ku aasay isla markiina wuu soo baxsaday subaxii waaga markuu bariyay ayuu ku soo laabtay Imaam Abu Xaniifa wuxuu ku yiri sheekhow khayr Allah ku siiyo waan helay lacagtii markaas ayuu imaamkii wuxuu ku yiri waxaan ogaa in intaasi in la eg salaad aad dukato inuusan ku ogolaanaynin shaydaanka isla markaana uu ka mashquulinayo salaada Ilaahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena oo maanta aan kaga hadlaynay qisadii dhaxmartay Imaam Abu Xaniifa iyo ninkii lacagta dhulka ku dugtay inta qisadan midkiisa xiga aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh